السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا ولا ليال جنكين وحلب كريبتو ولكن محمد جامع إن شاء الله حلقة waxaan kaga hadli doonaa arrimo fara badan oo kriptada ku saabsan taasoo maasha Allah labadii week ugu dambeeyay kriptadu si qurux badan u soo laabatay haddaad nagu cusub tahay fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe channelka noo saartid walaalaha channelka la socdana like ta hal bakhaylin ku soo dhawaada waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrin aad iyo aad u cajiiba taasoo aynu raacayno bitcoin history iyo bitcoin wuxuu hore u samayn jiray taasoo sidaan ku aragno chartka bisha February iyo March inuu suuqu sarakac u sameeyo waxaan u malaynayaa bitcoinka iyo altcoinsku saddexda bilood soo socda biidnillah inay sarakacaasi wadi doonaan suuqana waxaan doonayaa walaalaha inaan xasuusiyo ilaa iyo June iyo July ka faa'iideysta insha Allah suuqu sarakac waalan ayuu samayn doonaa taasoo sidaan ku aragno history-gaba 2017kii July iyo June oo sudhac buu sameeyay halkan waxaan ku arki karnaa 2019kii isla iyadii oo kale halkan ka dhacday halkan xitaa waa isla iyadii marka insha Allah maadaama February iyo March uu sarakac inoo sameeyay suuqu ilaa iyo June nihayadeeda ilaa July bilowgeeda sarakacaas uu sii wada doona biidnillah ta'ala ayaan u malaynayaa marka insha Allah intaa laga faa'iideysto haddaynu eegno market sentimentka amba jawiga guud ee suuqa waxaynu aragnaa inuu weli cabsi lagu jiro laakiin numberka 40 aad aragtaan ayaamii hore uu ka hooseeyay ilaa 15 buu mariyay meelaha marka wad aragtaan suuquna inuu si wacan u soo laabtay insha Allah momentumkana waxaan u malaynayaa ilaa 3 bilood soo socda inuu sii wadi doono oo kale ilaa 7 inoo gaaro insha Allah taasina waa arrin aad iyo aad u wacan maadaama fearkii meelo hoose marayay amba cabsidii suuqa laga qabay bilihii ugu dambeeyay maasha Allah maantana waynu aragnaa 40 ilaa 50 buu ku dhow yahay marka waynu aragnaa suuqu inuu bullish isu bedelayo amba dadkii suuqa ku soo laabanayay ee coinka iibsanaya ay soo badanayaan marka fursadda sidaan sheegay saddexda bilood ee soo socda biidnillah laga faa'iideysto suuqana ha ka seexan marka ugu wanaagsan ee laga ganacsado suuqu waxa weeye marka cabsidu ay jirto ay dadku ay baqayaan ee coinka badintoodu ay hoos yimaadeen isha bitcoinka haddaynu yarad istaagno waxaynu aragnaa inuu weli momentumkii uptrendka uu sii wado insha Allah sarakac u sameynayo haddaynu si wacan trend line-da ugu qabsanno waxaynu arkaynaa in trend line-kani insha Allah uu sii socon doono ilaa iyo 60kii uu ka soo daatay bitcoinku inuu gaari doono saddexda bilood soo socda amba ilaa nihayada sanadkan haddaynu si kale u eegnana wuxuu ku jiraa bitcoin laba top inoo soo sameeyay imankana laba bottom oo adigu wax W shape oo kale u eeg taabashadii saddexaad ba insha Allah dhiman kadibna sarakiciisi uu sii wadi doonaa oo ilaa 100,000 inuu gaaro waa macquul marka insha Allah chance wanaagsan ayaa la haystaa laga faa'iido sidaad ogtiinba bitcoin hadduu dhaqaaqu sameeyo altcoinska amba coinka kale ku xigaana iyaguna insha Allah sarakac bay samayn doonaan arrinta kale ee aad iyo aad u muhiima si momentumkaasi uu u sii socdo waxa muhiima bitcoinku inuu jabiyo areada xasaasiga ah ee $45,000 hadduu insha Allah areada uu jabiyo oo moving average kan sidii berigii hore uu ku dul xidho moving average kaasoo kontonka ah kontonkii cishay ugu dambeeyay sicirka amba priceka bitcoinka marka la isku celceliyo hadduu insha Allah areada uu dul maro waxay la tahay inuu bitcoin 100,000 iyo dheeraad inuu gaari doono dhawaan marka insha Allah laga warhayo intayna gabagabeen warkan oo imika soo dhacay ayna la sheergaraynaya ruushka oo doonaya natural gaskooda in bitcoinka lagu bixiyo qodobadii hore marka laga yimaado sidaan sheegay 45,000 hadduu bitcoinku inoo jabiyo insha Allah sarakac uu sii wadi doona suuqaduna way soo laabanayaan newskan oo kale oo fundamentalka ana insha Allah aad iyo aad bay u saacidaysaa hadday arrintani ay run ay noqoto oo ruushku tallaabada weyn u qaado oo lacagaha maaragtay gaaska uu ku iibinayo haddii bitcoin ahaan lagu iibsado hadda jeerna markaad xogtoo dhan aad haysatid oo dhinac walba aad ka soo baadhid suuqa wararka kale bush yar bay yara siiyaan suuqa taasoo insha Allah sidaan sheegay ilaa July sarakicii insha Allah confirmationkii warkaas aynoo ah marka suuqa laga faa'iideysto yaa la cabsan risk management hal isticmaalo khair badan bay nii rajeeyay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh